musharaxii jagada madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga mucaaradka ee ucud cabdirashiid xasan mataan ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Hargeysa waxa uu si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu iska casilay musharaxnimadii iyo gabi ahaanba xubinnimadii xisbigaasi ucud cabdirashiid xasan mataan ayaa iscasilaadiisa waxa uu ku sababeeyay khilaaf uu ku sifeeyay shirqool uu qayb ka yahay gudoomiyaha xisbigaasi waxaana uu sheegay in xisbigu isku maandhaafsan yahay musharaxnimada Jamaal Cali Xuseen oo ahaa musharaxa madaxtinimo ee xisbigaasi waxaan tacab badan geliyay si xisbiga ucud noqon lahaa xisbiga badbaadada Soomaaliland waxaan ka xumahay in xisbigii laftiisa aan ka badbaadin kari waayo shirqool uu qayb ka yahay gudoomiyaha Faysal isla markaana aanu soo aragti ka noqon weynay murashax Jamaal Cali Xuseen badbaadada xisbiga cadaalad iyo daryeel haddaba anigu qof ahaan waxaan ku qancay in aanan waqti inta ka badan kastii lumin karin shacabkii ku qanacsanaa hogaamintayda iyo taageerayaashiiba waxaan halkan si rasmi ah uga dhawaaqayaa inaan gabi ahaanba kala baxay musharaxnimadeedii xisbiga cadaaladda iyo daryeelka isla markaana aan kala baxay xubinnimadeedii xisbiga cadaaladda iyo daryeelka siyaasadda waxaan soo galay inaan dadka iyo dalka wax tari karo haddii aan badbaadin kari waayay xisbigii ucud ma ii qof ku qancaya ama ku niyad jabaya welina way ii furan tahay inaan ka shaqeeyo fursado kale oo aan dadkayga iyo dalkayga Soomaaliland wax ku tari karo